ghaswadii yarmuuk 3 nin oo asxaabtii nebiga maxamed ka mid ah ayaa dhaawac halisa lagu soo gaadhay marka kii horeeye la gaadhay wuxuu leeyahay biyo igu qabta Cikrimu ahaa markii biyihii la yidhi hal lagu qabto hal la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kale oo ka shisheeyo leh biyo markaasuu anu waan roonahe isaga la gaadhay biyaha kiiba lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonahe ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninnagu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbidayu leeyahay isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anu han dhinto walaalkay ha noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anu ha noolaado aadu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa jooga muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaad ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiisku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culummada inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad